بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين قدوميها حزبك عدالة يطريالك يوفتك وهقامين مدح دقميتك مدحنا إيا سياسيين كله goobtan ku sugan marti sharafta السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله محد له رسول كيسا ماموس له الله محد له ونبتقليه ينسيه isugu keenay goobtan bilan ee quruxda badan inagoo dan guud iyo dan qaran wadna ilaahay baa mahadle waxaynu caawa joognaa isha burco waa hudheel cusub oo ku soo kordhay hudheelada magaalada burco oo weliba daantan aad loogaga baahnaa waxa aan umahadnaqayaa dhammaan ka soo qaybgalayaasha iyo taageerada mugga iyo miisaan kale ee ay siiyeen labadan xildhibaan ee aanu caawa gelbinayno waa laba nin oo dhallinyaro ah oo aanu idiin soo xullay aanu rajaynayno inay deegaankan dalkan iyo dadkanba wax u qaban doonaan nin waliba naftiisa ha hafro nin waliba sawir iyo humaag beena iyo xaflad dhinackabooda ha soo bandhigo labadan murashax waa labada murashax ee rasmiga ah ee beelaha halkan ku midoobay ay taageereen dhisayaanna kadib wadahadal iyo gorfayn badan 24kii bishii hore iyay ahayd markay labadan beelood ku heshiiyeen inay codkooda iyo cududooda meel wada mariyaan in ay murashaxiintooda doorashadan soo socota iyo kuwa mustaqbalkaba si midaysan u soo saaraan waxaa ku xigtay 24kii bisha 25kii bisha iyaa si degdega oo dardarteedii wadata guddoomiyaha barakacayaashu uu xaflad halkeer ka sameeyey oo yidhi labadan beelood baan matalaa oo aan murashaxiin u wadaa anigu runtii waxaan odhan lahaa guddoomiyaha barakacayaasha ninkaa odaygii title kalaan u hayaa waa guddoomiyaha barakicinta waayo dad badan buu xisbiga kulmiye ka barakiciyey ninkaas sawirka iyo muunadda uu halkaa ka bixinayay waa mid ugu talagalay madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan iyo xisbiga kulmiye laakiin mid dadka gobolka togdheer ay ka iibsadeen ma aha waa la soo dhaafay xilligii la odhan jiray burco hays barato burco waystaqaanaa qamaamuurtii iyo qoorweyntii labada reer halkan ay caawa fadhiyaan labadaa xildhibaan bay dhisayaan waxa la yidhi lax gowracani way galgalataa oo geeday jiidhaa madba iyadoo gowracan bay geeda jiidhaysaa annagu maanu diidin inuu xaflad samaysto xaq buu leeyahay inuu xaflad samaysto haddii dee sawirkaa idinka iibsanayso laakiin ninkaa odayga ah aflagaado iyo deelqaaf baa habeenkaa ka tegey iyo hadalla aan munaasab ahayn aflagaado ku ceeba mas-uul qaran iyaa ka tagtay soomaaliduna waxay tidhaahdaa aflagaado nabadna way kaa kaxaysaa colaadna wax kaagama tagto waxaa kaloo la yidhaahdaa
waxa kaloo la yiraahdaa waraabe ulla lala gaari waa ayna wax lagaga qaadi waa markaanu siyaasadda u soo xaydanay de waraabayaasha aan af wax lagaga qaadayn baanu nahay oo dhirbaaxada ceel cad baanu uga nimi laakiin isaga iyo afkiisa iska xumeeyey gobolkan iyo labadan reer waa laba reer oo in badani wax ka dhaxeeyeen ninka odaygiihi intuu soo dhex galay iyuu isku dayay inuu midnimadooda wiiqo wuxuu yidhi laba ex wasiir ayaa reerahan furfuraya oo markay xil xukuumaddan ka waayeen furfuraya indhaha macallina labada reer ee uu sheegaya maanta maalin ay ka wanaagsan yihiin ma jirto maanta maalin ay ka midaysan yihiin ma jirto way isku dhafan yihiin wada jir bay u wada socdaan waa nin ehela oo aanu wax badan isu nahay markaa sidii sayidkii odhan maayo godka lagu cadaab muxuu go-uu been sheegay odhan maayo in yaroo ka khafiifsan baan odhanayaayoo waxaan odhanayaa eraygaad ku tirawday iyo arrinkaasi gaf weeye bal istaaqfurulayso inaadeerow kutubtii iyo qur-aankaad xoortay dib ugu noqo ilaahayna ka cabso waxaa ninkaa odaygii halkaa ka yidhi inan yar baa ku guuraya inan yar yaa hudheel halkeena burcod jiifa oo ku guuraya war bal niman yahow ninka uu inanka yar ku sheegayaa waa maxamuud xaashi waa ninkaa dhowr iyo 60 jirka ah ee timuhu caddaadeen ee 30kii sannadood ee ugu dambeeyey saaxadda Soomaaliland ku jiray siyaasadda siyaasiyiinta ugu tunka weyn buu ahaa dawladda Axmed Siilaaniyo ninkaasuu inan yar ku sheegaya يعني qofka mabdigiisa iyo siyaasadiisa waad kaga hor iman kartaa waad ku dhaliili kartaa filsafada iyo siyaasadda iyo policy waa laga doodi karaa waa la isku duri karaa laakiin nin weyn oo odaya oo kamida siyaasiyiinta beelweyntan inuu yani waa ragrifnimo waa xaqiraad xaakinkayna dilaya xaqiraadu ma fiicna laakiin waxa ka sii daran waar inaga is haynay oo masiirka labada reer isku haynay maxaa ina xaashi keenay war maxaa ninbaa bari gabadh la weydiistayoo markaasuu hadal aanu filaynin lagu yidhi ninkii wuxuu yidhi war markaan xaawo aroostiyo maxaa keenay xisaabta war maxaa ina xaashi keenay innagaa wada hadlaynay waxaa la yidhi bahalka shabeelka yaa la yidhi shabeelow dhashaadii geel baa laayey ilaan shabeelku geel ka aargoosan kari maayo kama adkee shabeelkii baa yidhi may geel muu layne giiraa laysay giiro taasuu isagu ka adagya markii ninkaa odaygaa lagu yidhi war reerkii samana abokor iyo yeesif maxamed galaal iyo xuseen guray bay raaceen iyuu yidhi may waxay raaceen ina xaashi war yaa alla yaqaana waxa aan runtii qofka ladnaanta iyo xilku inuu uga daro maaha waayo wax badan baa la xeeriyaa ninaanu saaxiib nahay oo yeesifaho axmed shiina la yidhaahdo oo barigaannu yaryarayn gabayga isku tuurtuuri jiray markaannu gabay baradka ahayn ayaa wuxuu yidhi barqadharaga xooluhuba wuu birinbirqeeyaaye adna beri samaadkaa taqaan iyo booli xooftada
waxa kale oo ninkii ilaahay aan naxariistay maxamed nuur fadal wuxuu yidhi ladnaanta iyo nimcadu uunka way wada lugoysaa war in adeerow yaanay ku lugoyn xilka iyo weligaa sidaa u qara weynaan maysid weligaa xilka hayn maysid weligaa xilka hayn maysid ee tol iyo ehel iyo wax badan oo la xeeriyo iyaa jira ha la xeeriyo ninkii la oran jiray ilaahay ha u naxariistee fanaankii weynaa fanaanadaan ugu jecelahay maxamed axmed kuluc hees buu lahaa la yidhaahdo xurmadaran baa la yidhahdaa heestaa xurmadaran midhaheeda waxaa ka mid ahaa xumaanta iyo dhibaatada xooggaygaan ku doontee nafsiga xaaba lagu daray xumaanta iyo dhibaatada anigu waxaan isleeyahay saaxiibkay maanta hadduu hees ku qaadayo uurkiisa taa ama la miduu ku qaadaya waayo xumaanta iyo dhibaatada xooggiisu ku shaqaystay markii boorweyntii iyo qamaamuurtii yeesif maxamed oo burca ku shiraysa oo masiirkeeda iyo arrimaheeda ka shiraysa intuu askar u dalbaday hudheelkii ay joogeen uu ku xidhay square ka qabtay oo awooddii dawladda ee ammaanada ahayd uu si xun u isticmaalee ku joor falay markaasuu xumaanta iyo dhibaatada xooggiisa ku doontay yeesif maxamedna maalintaasaa ugu dambaysay markaasay siri dhaqaaqeen waxa weeyaan weliba xitaa raggii dhexdhexaadka ahaa ee islahaa dadka isu soo jiida ayaa maalintaa quustay waan soo koobayaa anigu abwaan ma ihi laakiin marmar baan maskaxda tuujiyaa jiifto aan beri hore tiriyey baa la moodaa maanta inay ku habboon tahay waxay ka digaysaa wax badan bay ka digaysaa nebigay ku salliyaysaa calayhi salaatu wasalaam waxay odhanaysaa nebi maxamed guudkiyo gondihiisa hoosiyo goonyaha agtiisiyo gadaal iyo hortiisaba gallad iyo salaan goba rabbi hayga geeye markii uu guddoonkii eebba soo gunaanaday u gorfeeyey noolaha guulsida wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam guulsida wuxuu yidhi nacabkiinnu waa gocor gudcur weeye baas gudcur maaha waa nin madow laakiin maqaarka kama madoobee qalbigaa loo jeedaa gudcur weeye baasoo doldoloolo badane ka gaashaanta abidkii gocashada xadiiska leh waxaan uga gol leeyahay dee in badan baan hadlaya waxaan uga gol leeyahay waad iska garanaysaane waxa aan intaa ku soo gebagabaynayaa bini'aadanku wuu khaldamaa khaladkana ilaahay waddo lagu saxo iyuu ina tusay diinteenna iyo xadiiskeenna aynoo sheegayaan waa toobadkeen waa garowshiiyo waa raalligelin waa hadal san oo wanaagsan hadalka san ee wanaagsani qudhiisu waa sadaqo anigu saaxiibkay waxaan ku leeyahay anigoo ammaanaysanaya erayadii ilaahay ha u naxariistee abwaan cabdilaahi cali in adeer maqal waanada oo mahadnaqoo kaalay haddii kalese waa magalle madaxa aan dhowro intaasaan odhanayaa waxa kale oo aan ku soo gabagabaynayaa 3 qodob oo kooban waxa weeyaan mid hal madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland baan ku leeyahay halna xisbiga kulmiyaan ku leeyahay halna madasha halkan fadhidaan ku leeyahay hal madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland baan ku leeyahay oo afdheerina haygu noqotee mudane madaxweyne dadkii codka ku siiyey ku doortay kuwii ku dhisay kuwii kula ololeeyay afarta geesee dalkan meel kastaba kula saqaafay waxaa xukuumaddaada ku jira dad kaa fogaynaya danna qarankan uma aha danna dowladda jamhuuriyadda Soomaaliland uma aha danna duuga dambe iyo dhaxalkaaga iyo legasigaaga uma aha arrintaa
hoosu eego wax ka qaba mudane madaxweyne taasi waa koow midna xisbiga kulmiyaan ku leeyahay anigu horta waqtigan xaadirka ah wali kulmiyaan ahay laakiin ma oyahay hadhow siday noqon laakiin iminka waqtigan xaadirka wali xisbiga kulmiyaan ka tirsana xisbiga kulmiye hoggaankiisa sare dad waxa qabqablayaal ka ah waliba guddida fulinta qaar dad ay firdhiyaan mooyee dadka aan soo dhowayn karaynin qaar digdig iyo iswaal iyo xajiin dadka kula dhex jira hoggaanka sare xisbiga waxaan ku leeyahay xisbigii wuu dhiig baxay dad badan baa ka baxay intay goorigoor tahay wax ka qabta ama kuwa meesha ka saara ama naga dabra intaasaan leeyahay waayo rag badan baa ka baxay xisbigii wuu dhiig baxaya qodobka saddexaad waa madasha halkan caawa isugu timi labadan beelood iyo marti sharaftaba aad iyo aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan leeyahay ilaahay mahadi ilaahay ina solonsiiyey inaynu codkeenna isku darro labadan beelood xilligii jihaadka ee lagu jiray dagaalka wax waliba way isugu jireen raashinkaa isugu jiray rasaastaa isugu jirtay waxa isugu jiray hubka hadda waa waqti ragga qaar ay lahaayeen wadaadda sheeganayay jihaadkuba waa xaaraan wax waliba way sidaasaynu dalka ku xoraynay maantana waa mahad ilaahay haddii aynu wax wada qabsannay aynu tala wada yeelannay insha allah bismillaahi kariim xildhibaanadiinnaasna waynu soo saaraynaa guddoomiyaha xisbiga ucid injineer faysal cali waraabe aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa maaha xildhibaanadii ugu horraysay aan xisbigaa ka dhiso anigoo kulmiye ah khalad iyo ixtiraam darrana sida ragga qaar leeyihiin uma arko hargeysana qaar baannu ku dhisnay oo aannu ku sharaxnay aad iyo aad buu u mahadsan yahay sida sharafta leh ee uu noo soo dhoweeyey dee asxaabtii qaranku waxa weeyaan markay madaxtooyada tahayna waa iska fiqi tolkii kama janno tago tanna reer waliba xubnihiisa wuxuu ka soo saarayaa meesha uu dan u arko meesha uu u arko in maslaxadda reerka iyo deegaanku ku jiro aad iyo aad baan idiin salaamayaa aad baan idinku mahadnaqayaa haddaan ku dheeraaday hadalkana raalli ahaada assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu